kulan wacan daawadayaal halkan waa Channel Koval News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah baarlamaanka Puntland oo go'aan culus soo saareen iyo dani oo jawaab ka bixiyay faahfaahinana waxa ay ka soo baxayaan qorshe ay ciidamada Haramcad iyo NIS gudaha ugu galeen suuqa weyn ee Bakaaraha iyo Somaliland oo qaran dumis u aqoonsatay dadkii xajka ka aaday sanadkan qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka Channel Koval News fadlan daawade hadda nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada helo wararkan ku baahina channelkan aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim ah tan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa maanta kulan ay ku yeesheen Garowe waxa ay diideen inay ansixiyaan dhammaan xubnaha garsoorayaasha ee uu dhawaan madaxweyne Saciid Dani uu magacaabay maxkamadda sare ee maamulkaas ugu horeen kulanka golaha ayaa waxa laga aqriyay codsi ka yimid madaxweyne Saciid Dani oo ku aadanaa ansixinta hoggaanka maxkamadda sida uu shaaciyay guddoonka baarlamaanka waxa codeeyay 43 xildhibaan waxa ka hor yimid 11 mudane halka ay ka aamuseen 9 sidaas daraadeed xubnaha la soo magacaabay ee maxkamadda sare ee Puntland ayaa kalsoonida ku heli waayay 34 mudane dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa isla markiiba jawaab ka bixiyay go'aanka baarlamaanka wuxuuna mar kale dib u magacaabay xubnaha la diiday ee maxkamadda sare wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo isla maanta soo baxday ayaa waxa lagu magacaabay isla xubnihii la diiday waxaana gudoomiye u ah Axmed Maxamed Taaran talaabada uu qaaday Dani ee ah inuu mar kale soo celinayo xubnaha la diiday ee maxkamadda sare ayaa waxa uu ogolaanaya dastuurka uu yaala maamulkaasi warkan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray heer madaxweyne oo ku taariikhaysan 4 Julaay 2022 kuna saabsan dib u magacaabida maxkamadda sare ee dowladda Puntland madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay baa la yiri dastuurka Puntland qodobkiisa 9aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waaya aragnimadooda shaqo markuu tixgeliyay baahida loo qabo in la dhiso maxkamadda sare ee dowladda Puntland wuxuu xeeriyay baa la yiri magacaabid waxa Axmed Maxamed Yuusuf Taaran loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland 2 Maxamed Nuur Ciise Maxamed ayaa loo magacaabay gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland 3 waxa Axmed Haadi Aadan Yuusuf loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland 4 waxa Cabdiqani Deriye Cawl loo magacaabay garsoore maxkamadda sare ee Puntland iyo 5 waxa Cabdinaasir Cabdullaahi Cali loo magacaabay garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland waxa kale oo la magacaabay baaliyiri keedka 2 Maxamuud Aadan Cabdulle xubin 3 Cabdi Shaafi Axmed Cali xubin 4 xubno gudi 5 Daahir Maxamed Nuur 6 Xasan Cabdi Cilmi xeerkan wuxuu dhaqan galayaa baaliyiri markii uu saxiixo madaxweynaha uu saxiixay si kastaba waxa la ogeen haddana in baarlamaanka Puntland mar kale aqbali doonaan xubnahan uu dib u soo celiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani geesta kalena faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan qorshe ciidanka Haramcad iyo NIS gudaha ugu galeen suuqa Bakaaraha warar dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa howlgal qorsheysan oo ay gudaha suuqa Bakaaraha ka sameeyeen booliska sida gaarka u tababaranaya Haramcad iyo kuwa nabad sugidda Soomaaliya oo gudaha u galeen suuqaasi howlgalkan ayaa waxa horkacaya taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole waxaana ciidamadu ay sidoo kale isku fidiyeen xaafadaha warshadii hore ee caanaha warshada Taraqqiyo sigaarka xaafada Daarusalaam iyo degmooyin kamid ah qaybta bari ee gobolka Banaadir ujeedka howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amaanka sida uu shaaciyay taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir oo kormeer ku tagay suuqa Bakaaraha howlgalkan horkacay Farxaan Qaroole ayaa intii uu socday howlgalkan xog wareystay ganacsatada Bakaaraha oo wax ka weydiiyay amniga guud ee suuqa oo ah kan ugu weyn ee Soomaaliya saraakiisha booliska ayaana sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalkan oo looga gol leeyahay xaqiijinta amniga guud ee degmooyinka gobolka Banaadir booliska ma shaacin natiijada ka soo baxday howlgalkan iyo haddii ay jiraan in dad lagu soo qabtay in kale magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayeen falal amni dara ayaa haddana howlgal amni xaqiijina waxa ka wada ciidamada booliska Soomaaliyeed وهاجي داود يعني مكان وحنو eegaynaa Somaliland waxa ay qaran dumis u aqoonsatay dadkii xajka ka aaday sanadkan madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelic oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka arrimaha xajka ee kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka ayaa beeniyay in wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha xajka isagoona qaran dumis ku tilmaamay dadka reer Somaliland ee Muqdisho iyo Garowe ka dhoofay si ay u soo xajiyaan waxaan beeninaynaa hadalka soo yeeray wasiirka diinta iyo waqaafta Muqdisho
oo yiri waxaa madaxweyne ku-xigeenka ka wada hadalnay arrimaha xajka. waxaan ummadda reer Somaliland u cadeynayaa in wax wada hadala aan la yeelan qof ka tirsan qaranka Soomaaliya, taas oo ka dhigan in wasiirkaasi uu ku xadgudbay sharafteeda iyo tan qaranka Somaliland, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. wuxuu sheegay in wasiirku uu si aan habooneen u qeybiyay arrimaha xajka, wuxuuna sheegay in Somaliland ay tahay qaran, taas oo ka dhigan in dowladda Sacuudigu ay ka doonayaan qoondadii xajka. ummadda Somaliland waxay boqortooyada Sacuudi Carabiya uga fadhiyaan xuquuqdooda islaamiga ah oo 30 sano hagaldaacineysay. xukuumadda Somaliland, shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka iyo culimada waxay go'aan ku gaareen in sanadkan aan ka harno xajka oo Somaliland aan laga xajin, ayuu yiri Cabdiraxmaan Saliici. wuxuu intaasi uu ku sii daray shacabka Somaliland waxaan u sheegaynaa in ciidii meel kale ka dhooftay ama u barya tagtay inay meel u dhacday qarankana go'aan ka qaatay oo ay dhinac mareen, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. si kastaba hadalkan ka soo yeeray Saliici ayaa imaanaya xilli muran xooggan uu ka taagnaa arrimaha xajka sanadkan iyo qaabka ay u maareysay dowladda Soomaaliya tirada ee Soomaaliya ka heshay Sacuudiga. dowladda Soomaaliya ayaa horey iskaga fogeysay eedeymo loo jeediyay, waxayna tilmaameen in qoondadii loogu talagalay ay siiyeen Somaliland, inkastoo Somaliland la sheegay inay ka carootay tirada yar ee ku soo aaday. hase yeeshee waxaa la sheegay in sanadkan la koobay tirada Soomaaliya laga siiyo guud ahaanba xajka. hase yeeshee wasiirka diinta iyo waqaafta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in sanadkan aysan maamul ama qabiil u qaybin arrimaha xajka, sidaas daraadeedna ay go'aansadeen in shirkaduhu ay iyagu maareeyaan arrimaha xajka. dad badan oo xujeeya sanadkan ka cababaxay gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo ka kala socdeen qeybaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ee degan. waxaana sidoo kale jirta cabashooyin ka imaanaya Sacuudiga oo ku aadanaa qaabka loola dhaqmay dadkaasi, inkastoo ay jireen dad kale oo warbaahinta ka soo muuqday oo difaacay nidaamka loo maareeyay, iyagoona ku ammaanay shirkadihii maamulaya howsha inay si wanaagsan ula dhaqmeen. si kastaba sanad waliba cabasho xooggan ayaa ka imaada arrimaha xajka, waxaana inta badan arrinkan saameyn ku leh shirkadaha duulimaadyada oo la sheegay inay tartan adag u galaan sidii dadkaasi loo daabuli lahaa, islamarkaasna mid waliba u hesho qorshe tiradada loogu soo aadinayo oo ay u qaadayso dalka Sacuudiga. ma jirto nidaam cad oo ay dowladda Soomaaliya la timaado oo ku aadan sidii arrimaha cabashada ay soo laalaabta wax looga qaban lahaa. haddana Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu sii dheereed lacaga dheeriya oo lagu soo dalacay dadka xujeeda, taa oo ay la yaab ku noqotay dadka Soomaaliyeed maadaama dalalka adduunka aanan lacago intaa la eg laga qaadin dadka xujeeda ay tagaya dalka Sacuudi Carabiya. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii waad kala socoteen Hubaal News. fadlan daawade hadda nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararkaanu ku baahina janalkan, aragtidiinana halka uu noogu reebo muuqaalkana sii share gareeya, laagtiinana waa inoo muhiim. waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka janalka Hubaal News.